يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك بفرحنا جميعا بجميع الصالحات. munaasabad loogu ducaynaya laguna soo qatimayo qur-aan loo akhrinayay allah u naxariistay macalin sayd axmed oo ka mid ahaa culimmada saayidka looga aqoon jiray gobolka galgaduud ayaa lagu qabtay masjiduraxma degmada godoleb ee gobolka galgaduud waxaana munaasabadda ka soo qayb galay culimaa udiin ka kala yimid deegaano iyo degmooyin ka tirsan galmudug waxayna si wada jir ah ugu duceeyeen in ilaahay u naxariisto jannadiisana geeyo macalin sayd axmed. macalin mursal cali ayaa ka sheekeeyey habkii uu fidin jiray diinta islaamka isagoona sheegay in dadka deegaanka intooda badan uu baray qur-aanka kariimka ee qowlka eebbe. aad iyo aad u beledkan aan joogno caan uga ahaa wakhtigii uu ku noolaa waxyaabaha caadaadka u ahaana waxaa ka mid ahaa qur-aanka akhrintiisa wakhtiga uu marahayo jidka iyo wakhtiga uu maqaayadaha joogo iyo wakhtiga gurigiisa uu joogo iyo wakhtiga masjidka uu joogo isku si ayuu u akhrinayey kitaabna sida badan ka akhrimayn wuu xifdisanaa qur-aanka calaa dahrilqalbi ayuu ku akhri jiray dadka sifadaa iskalena sunnada nebigeenna sala allahu calayhi wasalam waxay ku tilmaantay ahlulqur'aani hum ahlullaahi wuxuu samay jiray oo kale dadka aan salaada tukan oo taarigiinta ah dadaal badan ayuu ku bixi jiray dhaqaalihiisa ayuu ku bixi jiray wakhtigiisa ayuu ku bixi jiray heer wuxuu gaarsiin jiray kii yidhaahda mare aan ku tukada ma haysto gurigiisa intuu geeyo biyuhu aaday u yaraayeena biyo uu ku qubaysta uu siiyo maryo uu qofkaasu salaadda ku tukadana uu ugu daro rag badan oo aan salaadda tukan jirin ayaa sidaa salaadda ku bilaabay beledkan aan joognana joogi jiray macallimkuna uu sabab ugu noqday in ilaahay subxaanahu wa tacaalaa cibaadadiisa ay ku hanuunaan macallinku in badan ayuu magaaladan joogay dadka joogana cibaadaadka iyo khayraadka uu kula dadaali jiray culimmada ugu timaadda deegaankana uu si wanaagsan oo sharaf iyo qiimo lah ayuu u soo dhoway jiray marka macallinka ilaahay ha u naxariisto wanaag badan ayuu ka tegey dad badan oo diinta ilaahay xambaaray ayuu wuxuu ugu sabab noqday inay qur'aanka akhriyaan mucallimiin ay ka noqdaan qur'aanka ay bartaan ayuu ugu sabab noqday dadkaasna waa dadka aad iyo aad ay sunanta nebigu ay u ammaantay aad iyo aadna ay uga hadashay fadliga iyo qiimaha ay leeyihiin marka nebigeennu sala allahu calayhi wasalama wuxuu leeyahay guud ahaan asagoo mucallimiinta ka hadlahaya ayuu nebigu wuxuu leeyahay sala allahu calayhi wasalama afdalukum man tacallama alqur'aana wa callamah waxaa inkugu fadli iyo khayr badan oo inkugu sharaf badan intaba riwaayooyinku way qoraan qofka qur'aanka barta ummaddana sii gudbiya oo ummadda bara abilkiraam fadligaas iyo qiimahaas way la leeyihiin macallimiinta dhammaan macallimkuna waa macallimkii mucallimiinta deegaankan aan joogno badidood soo bara qur'aanka cilmigii qur'aankii uu barana ay sii faafinayaan waxaan leenahay ilaahay agtiisa waxaan uga rajeehaynaa fadli iyo khayr darajo iyo qiimo ayaan uga rajeehaynaa ilaahay inuu jannadiisana ugu darana waa u rajeehaynaa waxaana ugu ducaynaynaa ilaahay inuu kitaabkiisa midigta ka siiyo jannadiisana ilaahay uu u hibeeyo وسعديك يا نبي الله لبيك وسعديك يا رسول الله والخير كل فيك يا حبيب الله عيد wax ka fiican la siiyay istiqaamo wax ka fiican qof la siiyay ma jirto qof la siin doonana ma jiro waxay tahay shayga ay wada leeyihiin ambiyada iyo awliyada ay wada leeyihiin waay
waxay tahay istiqaamadu halka nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam iyo dadka ku daydaba ilaahay u amray ilaah wuxuu leeyahay fastaqim kamaa umirta nebi moxamedow sidii lagu amray u toosnow waman taaba macakana waa la daba dhigay walyastaqim man taaba macaka intii adiga kul raacdayna ayaguna ha toosnaadeen marka waa khaslo ka dhaxayda ilaahay addoommadiisa kuwa ugu sarreeya dabaqada fiican gaaray oo ambiyada iyo awliyada wax ka dhaxeeya way istiqaamada ka hore wixii ilaahay rumeeyey haddana waxay ilaahay u diray gartay oo cilmi yeeshay haddana cilmigoodii ku camalfalay haddaan cilmiga lagu camalfalayn wax aan xujo ahayn qofku ka dheefi mayo آخر حجه كن غنيا عقوبة وزيادة يا من أسراه الله يا نبي الله لأن يعطى مناه يا رسول الله كل الأنوار منك يا حبيب الله